barnaamijkan maanta ma aha barnaamijkii faafareebka fanka mana aha barnaamijkii bara abwaankaaga waa barnaamij ku saabsan siyaasadda. goorma la odhan karaa ummadaasi way horumartay goormaynu odhan karnaa ummaddu way dib dhacdo dib bay u socotay daar la dhiso ciidan la tababaro dekada la sameeyo eerboodo maraakiib la soo iibsado haddii uu waddanku si kasta u horumaro adduunyada laguma cabiri karo lagumana qiyaaso inuu horumaray waddankaasi oo halka ay Djibouti marayso inoo cadayn doonta ma aha waxaynu buuq iyo qaylo waa ay tusoo taabsi haddii bay yiraahdaan ummadi ay xagga qalabkii xoogga ka horumarto walow bini'aadamku daarada dheerna ha haysto xoog badanna ha leeyahay nuclear weaponna ha haystee ma horumarin baa la leeyahay xaqiiqadu waxay tahay horumarka adawaadku ama qalabku miqyaasu ma aha yacni saa loo kala daaradhaadheeriyey bini'aadamku uma kala horumarsana baa laysku wada raacsan yahay haddaba qofkii yidhaahda Djibouti way baaba'day run buu sheegay qofkaasi haddii aanu jirin hal qodob qofkii yidhaahda Djibouti way horumartayna been buu sheegay haddii aanu jirin isla qodobkii hore qodobkani wuxuu yahay waynu ogaan doonaa iyada oo aqoon-yahano iyo culimo badan ay noo cadayn doonaan kadibna waxaynu qiimeyn doonaa xukuumadda madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle haddii uu waddanku si kasta u horumaro waxaasoo dhan waa wax qabad laakiinse waxaasoo dhani waxa ay noqonayaan maanya afac marka hal qodob la waayo haddii hal qodob la helana waxaasoo dhani waxay isku bedeli doonaan wada wax qabad laakiin haddii uu waddanku si kasta u horumaro oo halka qodob aan lahayn adduunyada laguma cabiri karo lagumana qiyaaso inuu horumaray waddankaasi haddaba shaygaasi ayaynu wada ogaan doonaa barnaamijka waxa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdiqani Sheekh Xasan Axmed qaryan hadalo halkaasi ayaanu barnaamijku ka bilaabmayaa daawasho haboon waa hagaag daarada dheer iyo marsooyin waaweyn oo la dhiso haddaan lagu qiimeyn karin horumarka ummadeed haddaba waa maxay halbeega caalamiga ah ee lagu cabiro horumarka dawladaha Sheekh Mustafa mar kale ha inoo sheego waxay dunidu isku raacday ee horumarka lagu qiyaaso waxa la yiraahdo horumarku waxay leenahay xaqiiqadiisa dhabta ah waxay tahay in xagga bini'aadamtinimada laga horumaro horumarka bini'aadamka ayaa miqyaas ah waxay leeyihiin waxa lagu kala horumarsan yahay oo kaliya sida bini'aadamku yacni waxa qofka bini'aadamka lagu qiimeeyo saa loogu kala horumarsan yahay oo ay kobocdo in xagga bini'aadamtinimada laga horumaro markasta waxaasi ay kobcaanba waxa la odhan karaa bay leeyihiin ummadaasi way horumartay waa hagaag imika waxaynu wada fahanay halbeega horumarka lagu cabiraa inuu yahay dawlad walbaaba sida ay uga shaqayso horumarinta arrimaha bulshada haddaba horumarku iskama yimaadee wuxuu u baahan yahay agab iyo alaab marka ay fal galaan dhali kara horumarka la raadinayo bal haddaba aynu ogaano hantida ugu muhiimsan ee ummada ay haysato si ay u horumarto ummadaasi horumarka bini'aadamku wuxuu ka bilaabmaa bay dhahaan waa saddex shay sida loo falgeliyo waa dhulka ay dadku leeyihiin khayraadka iyo nimcada iyo waxa alla ku siiyey in laga faa'iideysto waqtiga ay dadku haystaan inaan la dayicin laga faa'iideysto iyo dadkiisa in laga faa'iideysto saddexdaa haddii sidii ugu habboonayd looga faa'iideeyo xadaarada la sheegayo civilization iyo horumarku waa intaa ummadi waxay haysataa waa saddexdaa shay waa dhulka ay ku nooshahay waqtiga ay nooshahay iyo dadka ay haysato kaasi maaha kuwa anigu ka warramayo laakiin waa mid dunida oo dhan isku waafaqsantay waa hagaag imikana waxaynu ogaanay saddexda tiir ee horumarku uu ku salaysan yahay in ay tahay dhulka waqtiga iyo dadka haddaba saddexdan qodob midkeebaa ugu sii muhiimsan ha inoo sheego Sheekh Mustafa saddexda waxa ugu khatarsan bay leeyihiin bini'aadamka waayo haddaad isaga loskaraysa bay leeyihiin inta kaleba waad loskaraynaysaa hantida dhulkana waa lumaysaa iyo khayraadka iyo nimcada iyo wixii ku jiray waqtiguna waa lumaya saddexda waxa ugu khatarsan bay leeyihiin bini'aadamka afeef digniin ama wargelin xogta ku jirta muuqaalkan awgeed wixii imika ka dambeeya muuqaalkan waxa fahmi kara oo keliya qofkii aqoon leh ee waxbartay iyo ruuxii caqli badan iyo garaadba uu Ilaahay siiyey waayo waxaynu adeegsan doonaa aqoonta bulshada ee afka Carabiga lagu yiraahdo cilmul sukaan afka Ingiriisigana lagu yiraahdo demografigu waa cabirka lagu qiyaaso ummad meel ku nool dhaqdhaqaaqeeda dhimashadeeda heerka dhalashadeeda iyo kolba da'da iyo cimriga dadkaasi ay ku dhintaan
haddaba dimugraafigu waa aqoonta bulshada waana cilmi baaris xisaabeed oo ku salaysan tirakoobyo aqooneed oo lagu sameeyo dadweyne meel deggan iyada oo diiradda la saarayo qiyaasta tiradooda iyo qaabdhismeedka nolosha bulshada. dhidibada uu ku taagan yahay dimugraafiguna waxa ugu sii muhiimsan saddexdan tiir ee kala ah: 1 uurqaadista iyo dhalashada carruurta, 2 geerida dadka iyo dhimashadooda, 3 socdaalka iyo dhaqdhaqaaqa bulshada. arrimahaas oo la isku soo wada daray sida ay iskula beddelaan marka uu wakhti ka soo wareegaba kadib, marka muddo ama sanawaad laga soo wareega kadib, inay bulshadu kor u kacday iyo inay bulshadu hoos u dhacday qiyaasta lagu cabiro ayaa la yidhaahdaa dimugraafi. haddaba waxaynu qiyaasi doonnaa dadka reer jabuuti 1999 tirakoobkii qaramada midoobay ay ka sameeyeen magaalada jabuuti amaba waddanka jabuuti ayaynu eegi doonnaa halkii qiyaastaasi ay maraysay. taa markaynu ogaano kadib waxaynu garan karnaa xukuumadda madaxweyne geelle inay aayaha dadka anfacday iyo inay ummadda aakhiro u dirtay. labadaa midkay noqotaba way noo caddaan doontaaye aan caqliga ka shaqaysiina daawade. dhalintii dalkay dhidigiyo labood dhawaaqayga iyo dhuuxoo murtida dhegihiinna fura. dhalintii dalkay dhidigiyo labood dhawaaqayga iyo dhuuxoo murtida dhegihiinna fura. dhawaaqayga iyo dhuuxoo murtida dhegihiinna fura. haddaba maxaa looga baahnaa madaxweyne geelle inuu sameeyo si ay jabuuti horumar u gaadho? waxaa loo baahan yahay bini'aadam in la keeno. haddii warshad taangiya la haystiyo kombiyuutaradu bini'aadam ma noqdaan, dayaaraduna bini'aadam ma noqdaan. waxaa loo baahan yahay bini'aadam in la keeno. haweenkeenna aan ku qancinno inan walba ayaydeed intay dhali jirta inay dhasho, inay wax dhasho. macnaheedu waxa weeyaan waa inay jiil cusub ama dhiig cusub ummadda ku soo kordhiso. si ummadda isu beddesho oo horumar uu gaadhi karo waa in jiil cusub isoo koraa. waa hagaag. haddaba xukuumadda madaxweyne geelle waxay aad uga fikirtay sidii lagu heli lahaa jiil cusub oon caajisayn oo ummadda horumar u soo jiida, si loo helo jabuuti cusub oo la jaan qaada caalamka. si taa loo helana madaxweyne ismaaciil cumar geelle wuxuu qaaday tallaabooyinkan soo socda. 1 waxqabadka koowaad waa meherka. madaxweyne geelle wuxuu dardargeliyey kana shaqaysiiyey qodobka qiimaha meherka oo sharci ahaan hore u qornaa, kaasoo dhigaya lamaanaha isguursanaya inay isku mehersadaan lacag dhan 60,000 oo faran oo u dhiganta $300 oo dollar. ujeeddaduna waa si ay u samaysmaan qoysas badan oo reer jabuuti ahi. faamiligu, gurigu waa mu'asasada ugu khatarsan ee mujtamacuba uu leeyahay. bulshada ummaddu mu'asasada ugu khatarta badan leh ee hadday dunto aanay ummaddaasi jirin, hadday dhisan tahayna ummaddaasi jiri kartaa waa guriga, waa faamiliska, waa reeraha. waa in aabbiyo hooye iyo carruur ay dhalan ay jiraan oo ay tarbiyaynayaan. waa hagaag. tallaabada ay qaaday xukuumadda madaxweyne geelle waxaa ka dhashay urur ay dowladdu taageerto oo ka shaqeeya hawshan, kaasoo sannad walba soo qabanqaabiya meher wadareed la isku guurinayo dhallinyarada reer jabuuti. lamaanayaasha da'da yar waxaa laga taageeraa wixii kharash ku baxaya arooska iyo gurigoodaba. haddaba aroos wadareedkii ugu dambeeyey waxaa la qabtay 6dii bishii labaad ee sannadkan aynu ku jirno ee 2026. dhawaaqayga iyo dhuuxoo murtida dhegihiinna fura. isku soo wada duuboo tallaabadani waxay keentay inuu guurkii fududaado, isla markaana ay bataan qoysaska ku soo biiraya bulshada reer jabuuti. 2 waxqabadka labaad waa abaalmarinta uurkiyo dhalmada. tallaabada labaad ee dowladda jabuuti ay qaaday waxa weeye in la dhiirigeliyo dumarka oo la abaalmariyo markay uur yeeshaan iyo marka ay dhalaanba. waxaa tallaabadan oo kala qaaday dowladihii reer yurub oo iyaguna go'aansaday in ay lacag ku dhiirigeliyaan dumarkooda si ay carruur u dhalaan. dowladihii waxay xoog iyo xoolo lahaayeen, waxay isugu geeyeen in wax la dhalo. dowladihii iyo nidaamkii waxay leeyihiin ha la guursado, waxa la dhalo. in maal wax lagu horumariyo la wado ayaa la rabaa in la dhiirigeliyo. waa hagaag. gabadhii uur yeelata ee ka mida shaqaalaha dowladda jabuuti xukuumadda madaxweyne geelle waxay siisaa 6 bilood oo fasaxa, iyadoo haddana qaadanaysa lacagtii mushaharkeeda ahayd oo waxba aan laga jarin.
arrintaana dowladda Jabuuti waxay kaga horreysaa Afrika oo dhan. haddaad ilmo dhasho waxaad leedahay baa la leeyahay sanad fasaxa waad mushaharkaagii 80% qaadanayso waayo ilmahan rabnaa inaad korabay leeyihiin oo uu bulshada ka mid noqdo marka si aad ilmaha u koriso aad bulshada uga mid noqotid mushaharkii aad qaadan jirtay meel kastaba ka shaqeeyo 80% ku socdo waa hagaag horay Soomaalidu u tiri haddii ay fooli timaado guda qarsiima way hadhay oo gabadh fooli qabatay kula sugi mayso bishu ha dhamaato iyo mushaharka hal la qaato toona xilli kasta iyo xaalad walba gabadhii uurka lahayd marka ay dhasho xukuumadda madaxweyne Geelle waxay siisaa gabadhii umushay lacag dhan 15,000 oo faran oo u dhiganta $85 arrintaana dowladda Jabuuti waxay kaga horreysaa Afrika oo dhan. dowladu go'aan bay qaateen markaa gabadha dhasha مثلا anigu wadankan joogi jiray gabadha dhasha haddaad ilmo dhasho inaad ilmo dhashay baad $500 leedahay waa abaalmarin dowladdu ku siinaysa. waa hagaag ninkii qabay gabadhan umushay ee isaguna la foolanayay xaaskiisa intii ay ilmaha dhalaysay isagana dowladda Jabuuti waxay siisaa 3 maalmood oo fasaxa si uu ugu adeego hooyadan umushay ee qofka nool ku soo kordhisay dalka Jabuuti. waxay ma ilma hadduu dhasho si loo dhiirigeliyo odayga laftiisu bil fasax u baahan yahay bay yiraahdeen odaygan waxba dhalin isagu isna wuxuu u baahan yahay si uu caawiyo bay leeyihiin islaanta ilmaha dhashay ee bulshada wax ku soo kordhisay. sidoo kale xukuumadda madaxweyne Geelle waxay aad u qadarisay xilliga naasnuujinta ilmaha yar oo 2 sannadood ah gabadh kasta marka ay 40 baxdo waxa ay ku soo noqotaa shaqadii dawladda haddaba gabadh kasta oo shaqaynaysa oo haddana ku jirta xilligii naasnuujinta waxa la siiyaa muddo saacad ah inay ka dambayso shaqaalaha kale xilliga ay shaqada soo galayaan. tusaale ahaan haddii shaqaaluhu ay shaqada soo galaan 7 aroornimo gabadha naaska siinaysa ilmaheeda iyadu shaqada waxay soo gashaa 8 aroornimo oo saacad bay ka dambaysaa shaqaalaha kale sababtuna waa ilmaha yar ee naaska shaqaya awgii. haddaan hooyooyinkiinaayo beyo sidoo kale xukuumadda madaxweyne Geelle sanad kasta waxay mushaharka u kordhisaa ninkii carruur dhalaa ilmo kasta markuu dhasho aabbihii dhalay waxa loo kordhiyaa mushaharkiisii uu bil kasta qaadan jiray waxaana loogu biiriyaa lacag cayiman oo sababteedu ay tahay ilmahan soo kordhay ilin Jabuuti Afrika tusaale u tahay. Ismaaciil dalka u baahan bariga Afrika u baahan Ismaaciil dalka u baahan. dowladda Jabuuti waxa kaloo ay bixisaa abaalmarin sannadeed ku salaysan tirada carruurta nin kastaana wuxuu lacag ku qaataa sanad walba tirada carruurta ee uu dhalay. tusaale ahaan ninkii dhalay 6 carruura xukuumadda madaxweyne Geelle waxay siisaa 100,000 oo faran oo u dhiganta $570 lacagtana waxa laga bixiyaa xarunta loo yaqaano OBS-ta ee ku taala caasimadda Jabuuti. arrintaana dowladda Jabuuti waxay kaga horreysaa Afrika oo dhan. 3 waxqabadka saddexaad waa maalgelinta hooyooyinka. gudoomiyaha haweenka jamhuuriyadda Jabuuti waa marwada koobaad ee waddanka Jabuuti hooye Khatre Maxamuud Xayd. haddaba qoysaska reer Jabuuti si aanay marnaba u burburin ayay marwo Khatre Maxamuud Xayd waxa ay hindistay oo ay hal abuurtay waxqabadka lagu maalgelinayo hooyooyinka Jabuuti. xukuumadda madaxweyne Geellena way ansixisay oo way hirgelisay in lacag la siiyo hooyooyinka raba inay shaqaystaan ee odaygii qabay uu ka xanuunsanayo amaba uu ka geeriyooday iyo hooyo walba oo soo codsata maalgelintan. aad baan u hambalyaynayaa haweenka dalkeenna waxa iminka albaaba u furan xuquuqdooda ay cidna ka baryin ay shaqaystaan ay annagana naga sugaan wixii gargaar ah. hooyadii soo codsata maalgelintan marka koobaad waxa la amaahiyaa lacag ay wax ku bilaabi karto oo bilaa dulsaar ah marka ay soo celiso lacagtii la amaahiyeyna marka labaad waxa la amaahiyaa lacag ka badan tii markii hore la amaahiyey. fikraddan ay keentay marwo Khatre Maxamuud Xayd waxa ka faa'iideystay hooyooyin tiro badan oo maanta Yurub iyo China u taga arrimo ganacsi. kale waxaan lahaa
bayax mushtariya tijaara badeecada soo dejo bariga afrikaba dhammaan ku baahiyey baa ka mida haddii kale waxaan lahaa horumarka baladka iyo dhaqaalaha bariya waaxidoo badan bay hayaan haweenkeenii hayaan haddii kale waxaan lahaa afar waxqabadka afraad waa qiimaha cuntada iyo maciishada Jabuuti si loo ilaaliyo qoysaska dadka reer Jabuuti ayay xukuumadda madaxweyne Geelle waxay jabisay qiimihii lagu iibsanayay raashinka ganacsatadii horarka ahayd ee ummadda xafuujin lahayd waxa ka hor taagan madaxweyne Geelle oo ka diiday in ay qiimaha maciishada ku kordhiyaan dadka wixii la cunayay inaan ilaalino oo qiimaha aanan dadka lagu dhibin qiimo kordhin aanan meesha oolin inaan yeelno ma aha waxa la xafuujinayay waa qofkan miskiinka ah oo aanay baayac mushtarku ama ganacsatadu ay fahmaynin in la ogaado maalin walba suuq halka uu joogo inaan ilaalino oo qiimaha aanan dadka lagu dhibin Soomaalihaadka meeriyo aafaadka dunidu haddii ay dhacaan iyo sida looga samata baxaya haddii ay balaayo aloosanto ayay dowladda Jabuuti ka sii baaraandegtay beri hore si aanay masiibadu u saamaynin dadkayga reer Jabuuti waxaanay dowladdu dhistay haamaha kaydka shidaalka qaranka ee Jabuuti oo qaadi kara malaayiin mitir kuyuub oo shidaala oo taa markhaatigeedana maanta waad arkaysaan barigii dhexe inay dagaalla ka socdaan oo shidaalkii duniduna uu qaaliyoobay meel kastaba ha noqotee balse waddanka Jabuuti weli 10 faran kumuu kordhin qiimihii shidaalka inaan ka eegno inuu dhibaatooyin xagga cuntada iyo shidaalkaas ay ka yimaadaan hawshaa inaan dadka u fududayno waxaan meesha u joognayna wax kale maaha inaan ilaalino dadkeenna wey mas'uuliyadda dawladdu waa taa shan waxqabadka shanaad waa raashin bilaasha dawladdu waxay kafaalo qaaday nolosha dadka danyarta ah ee ku nool waddanka Jabuuti oo bil kasta ugu badnaan waxa la siiyaa ugu badnaan raashin u dhigma 30,000 oo faran ama $200 raashin u dhigmaya qoysaska qaarkoodna waxa loo raaciyaa lacag cadaan ah oo sariimada ay ku tagaan adeegihiinii baan ahay inaan u adeego ummadda sida u dhan tahay waajibkayga wey lix waxqabadka lixaad waa dib u dejinta iyo guriyeynta Jabuuti 27 sano ka hor dadweynaha reer Jabuuti waxay ku noolaayeen guryo jiingado iyo looxyo u badan haddaba dawladda Jabuuti oo dadkeeda qadarinaysa ayaa u quuri weyday inay qaabka u noolaadaan waxayna u qorshaysay inay ku noolaadaan nolol qabow oo qaaya badan waxayna u qotomisay dadkeeda qaaliga ah guryo u qalma sanadku markuu ahaa 2023 ayay dawladda Jabuuti ka dhistay bandarada dhaadheer waqooyiga xaafadweynta Balbala kuwaas oo qaadi karaya 2500 oo qoys agaasimaha guud ee sharikadda dawladda Jabuuti ugu qaabilsan dib u habeynta magaalooyinka iyo guryaha bulshada marka mashruucan ay isu dhamaado ama xaafadan ay isu dhamaato imse guriba ay noqonayaan waxaan ugu talagalnay in noqdo ilaa 2500 guri marka imaaradii walibaaba imse guriba ka kooban imaaradiiba waxay ka kooban tahay 8 guriba ka kooban tahay bishii saddexaad ee sanadkan aynu ku jirno ee 2026 ayuu madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle waxa uu xariga ka jaray daaro qurux badan oo xukuumaddiisu ay ka dhistay koonfurta xaafadweynta Balbala tirada guryahani waxay gaarayaan 1020 guri oo ka kooban 520 dhisme Cabdiraxmaan waxaad ii sheegtay 440 guri ay imka dadka ku wareejiseen oo la degan yahay kuwa wali socda waa imse guri iyaguna oo imka dhismuhu socdaa 840 guri oo dhismuhu way socdaan imka aan soo saari doono sanadkan soo socda dhexdiisa waxa kaloo la dhisay guryo badan oo macallimiinta u gaar ah oo meeqaamkooda ku habboon kuwaas oo muuqa quruxdooda meel fog laga daawan karayo dadka reer Jabuuti qofkii doonaya kiro qunyar buu degayaa guryahan qofkii doonaya inuu iibsadana qiimo macquul ah ayuu ku qaadanayaa guryahan ee xagga guryaha ee dawladda Jabuuti ay ugu tala gashay in guryo qiimahoodu uu jaban yahay ay ku helaan bulshada reer Jabuuti aan soo gaabiyo hadalkee 27 sano guryihii la dhisay marka la isku soo wada daro dawladdu waxay dhistay guryo qaadi karaya ilaa 30,000 oo qoys maanta bulshada reer Jabuuti 70%
waxay ku nool yihiin bandarado iyo daara dhaadheer dhismayaashan galacayidhi guuyiyo ku baxay maalqaar la gabagabeeyo dhismayaal maguurana ka hirgalaya goobtaniyo sababnimo ka gudubnaye gaawaha u cula dhereg gaawaha u cula dherege toddoba waxqabadka toddobaadna waa xajka bulshada reer jabuuti intii aan fursad u helin in ay soo gutaan waajibaadka xajka duruufo dhaqaale awgeed dadkaasi sidii ay u tegi lahaayeen xajka in badan oo ka mida waxaa ka taageerta dowladda jabuuti sannad walba arrintan waxaa ka faa'iidaystaa intii uu ilaahay u qoray oo ka mida bulshada reer jabuuti kuwaas oo dowladdu ay ka bixiso kharashaadkii ay ku tegi lahaayeen xajka dayaxno dhashiyo waa nidaacada daykeenba darajeeye ismaaciil cumar alownoda ismaaciil cumar alownoda ismaaciil cumar alownoda horumarinta haddaba ismaaciil waa hogaamiye loo bogo bulshadiisa badbaadiyo la beegsaday nolosha bilicdeeda iyo badhaadhahay badi maanta joogaan berrina hilaadin ka sii ballaadhan buu ugu baaqi doonaa waana haliyey wacad buuxiyo barbaartii uu beertay iyo dadkii baahida xooggala qabe uu baantayba beeldaajiyaha waxay ugu baaqayaan annagaa barbarkaaga joognee bishaarada naga guddoon anna taa waxaan baal ka raacshay abaalkiisu baaqan maayee bulshooy sheega ballankaad u qaadeen waxaan ballankuugu qaadnay abaalgudis baa xaliyo taageero ballaadhano abuu bilisiyo ragibo annagaa barbarkaaga joogne annaga tegin baan ku nidhi 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 haddaba barnaamijkan waxaan ku joojinayaa dowlad u jajaban dadkeeda ayaa jidka guusha jeexdoo horumar ummadda u jihaysee dalalka jaarka oo dhan inay jabuuti jagada sare ka gaadho juhdigii geella weeyaan anoon sii jiidin hadalka waxaan ku jarayaa hoggaan jawharada weeye u hiiliya reer jabuutow adaxay ha jabin udubow ha dhicin aqoonay ha hadhin ismaaciil ha tegin awshahay ha dhigin aqliyow ha gudhin ha iftiinoo ha demin ha aaminow ha lumin ismaaciil ha tegin awshahay ha dhigin isu soo baxno ku ishaaranaye ammaanada makale abbow adigu noohay jabutaayahaw aya dheer lahaw ummadaysiinow indha qudha lahaw geesigana ogow waynaga oo waynaga jawigoo ah ii oje inaga ah iyoje usha ah iyoje waynaga oo waynaga jawigoo ah iyoje